galab wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garow idaacadeena galabnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka waana galabnimo jimcaha saaxiibayaal taariikhduna waxay ku beegan tahay 25-ka bisha Maarso sanadka 2022 idaacadeena qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo xaqiijiyay in uu socdo shirqool lagu dili rabo laba musharax oo madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud yahay taacida abaabuleysa qorshaha shirqoolka la rabo in labadaas xubnood lagu qaarijiyo xog uu soo bandhigay General Indhacade ayaan idiin soo gudbin doonaa in shirqoolka Muqdisho ka soconaya ee la rabo in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Sheekh in lagu qaarijiyo waxa kale oo idiin soo gudbin doonaa xildhibaanada kuraasida loo soo xiray oo ay soo saaratay Villa Soomaaliya oo walwal xoog la soo wajahay xildhibaanadaas oo ka baqaya in la qaarijiyo hadii amarada Villa Soomaaliya ay diidaan macluumaad ku saabsan ayaa qaybka 16 kursi ee Garbahaare oo u muuqata in markan uu boobay Axmed Madoobe oo sidoo doona ka yeelan doona macluumaadkan ayaa qaybka ay wixii ka soo kordhay wararkii ugu dambeeyay shirka beelaha Digili Mirifle iyo beesha direed ee ka dhacay magaalada Baydhabo iyo Farmaajo la xaqiijiyay in shirkaas uusan ka qayb gali doonin macluumaadka ku saabsan shirkaasna waa idin soo gudbin doonaa waxa kala saaxiibayaal qayb ka noqon doona Hirshabelle waxay shaacisay in kuraastii ugu dambeysay ee lagu dooranayo magaalada Beledweyne 4 kursi iyadoo dib loo dhigay kursigii xildhibaanada Aamina waa maxay sababta warbixin ayaan kaga hayaa meydka Allah u naxariistay xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi iyo nabadoonkeeda oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho iyo golaha ammaanka qaramada midoobay oo shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda murugsan ee Soomaaliya iyo qaraxyada caasimadda ka dhacay oo golaha ammaanku oo warbixin uu ka soo saaray qodobadan iyo kuba kale ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal 10 daqiiqo ay nagu soo aadan hadduu ilaa raali ka noqdo qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena saaxiibayaal soo dhawaada qodobadan iyo kuba kale muhiim ah isku diyaariya inaad daawataan aan ku bilaabase warbixinada shirqoolka lagu qaarijiyo rabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale xubnaha kale ee hadda sida weyn loo hadlayo General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa xaqiijiyay inuu socdo qorshe la rabo in lagu qaarijiyo laba musharax oo madaxweyne oo u tartamaya jagada sare dalka kuwaas oo caasimada Soomaaliya Muqdisho ku sugan Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa digniin ka soo saaray weeraro horle oo uu sheegay in la rabo in lagu qaarijiyo madaxweynayaal hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kuwaas oo la sheegay in hadda xaalad halis ay wajahayaan iyo xubno kale oo uu sheegay in Villa Soomaaliya ay rabto in shirqool ay ku disho waxaan ognahay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur dad ay ka mid yihiin ay la bartilmaameeyeen ama bartilmaameed u yihiin oo la rabo in loo adeegsado qaraxyo lagu qarijin rabo iyo dad badan oo kale wax badan ayaa saacadaha soo socda dhici kara ayuu yiri General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade hay'adaha amniga mid kamid ah ayuu sheegay in arrintan ay ka howlan yihiin hay'adaha amniga ee Al-Shabaab ayaa isku dhaxmilmay waxayna ka shaqeynayaan qaarijinta shakhsiyaadka ka soo horjeeda Farmaajo ayuu sii raaciyay General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade General Indhacade ayaa sheegay in qarxi Beledweyne ee lagu dilay xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi oo ahaa mid laga soo shaqeeyay oo dana siyaasadeed ay ku jirtay wuxuuna sheegay in qarxaas waqti badan la geliyay ayna ka dambeysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha amniga sidoo hadalka u dhigay General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa sidoo kale tilmaamay in ujeedka weerarkaas uu ahaa in lagu aamusiyo cadaalad u raadinta kiiska Kiran Tahliil asagoo intaas ku daray in Cabdiciise Afrika darawalkii asaga baabuurka ah u waday la socday wararkii garoonka diyaaradaha aadan cadde kii xildhibaanada Aamina lagu dilay dhammaan bayn falal wada xiriira asagoo tilmaamay in hay'adaha amniga ay ka qayb leeyihiin oo isku milmeen Al-Shabaab oo ay ka dambeeyaan xafiiska Villa Soomaaliya sida uu yiri Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad Indhacade isku milanka Al-Shabaab iyo hay'adaha amniga ayuu sheegay Indhacade inay sabab u noqon karaan geerida xubno kale oo caan ah iyo mas'uuliyiin kale oo la bartilmaameedsado kuwaas oo sheegay maalmaha soo socda qaraxyo ka dhici kara caasimada lagu bartilmaameedsanayo maruu sii hadlayay weerarkii garoonka diyaaradaha aadan cadde Arbacadii ayuu sheegay in weerarkaas ay
ay ahaa mid laga soo shaqeeyay ayna qaadeen rag ku labisan ama dariiska ciidanka dowladda hay'adaha amnigana ay wax ka ogaayeen isla markaana xitaa uu sheegay in habeen hore ka hor intuusan weerarka dhicin laba habeen ka hor ragga weeraray gudaha airportka waxaa la siiyay aqoonsiyo ay kaga gudbaan baraha control ee laga ilaaliyo amniga airportka waana sababta loogu fududeeyay in gudaha garoonka ay galaan ayuu yiri Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade xogta uu soo bandhigay Indhacade ayuu sheegay in raggii weeraray xerada xalane iyo airportka ay ahaayeen 3 qof oo laba habeen ka hor la siiyay aqoonsiyada dowladda lana watay ayna loo soo xiray dariiska ciidanka dowladda waana tan u sahashay jackpointyada faraha badan ee airportka in si fudud ay kaga soo gudbaan kadibna ay galaan gudaha garoonka diyaaradaha ayna ka dhex dagaalamaan asagoo sheegay in la fududeeyay weerarkii airportka ujeedkiisu wuxuu ku sheegay inuu ahaa in lagu carqaladeeyo arrimaha doorashada iyo in dalka lagu qaban karin doorasho sidoo kalena iyadoo oo laga jawaabayo dowladkii socdaalka ee ra'iisul wasaaraha iyo safiirka Mareykanka uu ku sameeyay aaga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isla 4 maalmood waa isla 2 maalmood ka hor waqtiga weerarku dhacayo Indhacade wuxuu sidoo kale uu sheegay in xildhibaanad Aamina iyo in badan ba xildhibaanad Aamina ay inta badan ka hadli jirtay kiiska Ikraan Tahliil asagoo sidoo kale sheegay in shakhsiyaadka ku eedeysan dilka Ikraan Tahliil kuwaas oo sheegay in hadda ay rabaan inay adeegsadaan al-shabaab iyo hay'adaha amniga oo ay iska horleexiyeen cid walba oo ololaha Ikraan Tahliil ka shaqeynaysa ayuu yiri Indhacade Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa sidoo kale cadiyay in toddobaadka soo socda kooxahan ay fulin doonaan weerar kale oo qaraxyo ah oo laga burtilmaameysan doono xubno siyaasiyiin oo waxgal u ah beelaha waa xubno siyaasiyiin oo waxgal u ah bulshada Soomaaliyeed oo caasimada ku dhaqan hadalka Indhacade ayaa u muuqda mid walaac iyo cabsi hor leh ku abuuri kara ee xubnaha siyaasiyiinta lagana oga in hay'adaha amniga ay eedda loo soo jeediyay ah isku milinka al-shabaab iyo waxay ka dhigi doonaan inkastoo hay'adda NISA inta badan hadda loo soo jeedinayo ku milinka al-shabaab waxaana xoogeysanaya tuhnada ah in NISA iyo filla Soomaaliya ay wax ka ogaayeen qaarajinta kiiska xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi xoguhu waxay sheegayaan in laga cabsi qabo in mar kale caasimadu ay martigeliso weerar kale oo qaraxyo ah oo waliba baabuur loo adeegsado in ay ka dhacaan magaalada Muqdisho warka ka soo yaray Indhacade haddii uu rububo tani waxay fadeexad iyo ceeb weyn ku noqon kartaa hay'adaha amniga iyo xafiiska villa Soomaaliya oo la sheegay in ay sabab u yihiin qaarajinta xubnaha ay u arkaan inay ka soo horjeedaan dhinaca kalena xildhibaanada kuraasta loo soo xiray oo loo boobay ee ay soo saartay villa Soomaaliya ayaa hadda walul xoog leh muujinaya iyo cabsi xoog leh kadib dilkii xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi waxaa soo baxaya cabsi iyo shaki weyn oo ay muujinayaan da'yarta xildhibaanada baarlamaanka 11aad kuwaas oo muxaafidka ah oo kuraasta ay u soo boobtay villa Soomaaliya dilka iyo qaraxa lala beegsaday xildhibaanad Aamina wuxuu ka dhigan yahay in xildhibaanada kuraasta loo soo xiray oo farmaajo iyo waliba Fahad Yaasiin ay soo saareen loo fariin cad oo ujeedku yahay in ay la shaqeeyaan labada dhinac oo baarlamaankuna ay u noqdaan kuwa ku difaaca shakhsiyaadkaasi oo aan la keenin wax isbedel ah oo kooxdan aan laga saarin madaxtooyada arintaas darteeda waxay walal xoog leh tiiraayay ku abuurtay xildhibaanada kuraasta loo soo xiray oo kooxda farmaajo ay soo saareen taas oo la sheegay in laga hor istaagay in aragtidooda siyaasadeed ay ku biiriyaan oo ay la kulmaan xisbiyada mucaaradka ee Muqdisho ku sugan mid ka mid ah xildhibaanadaas oo villa Soomaaliya ay soo saartay dhaqaalaha xoog leh laga bixiyay oo janaalkina sirta wararka u waramay kaas oo ka gaabsay inaan magaciisa aan shaacino sababo dhanka amni awgiisa ayaa sheegay in walaa xoog leh uu soo wajahay kadib markii xildhibaanada soo baxay madaxtooyada ay soo saaratay dhamaantoodba loo diiday la kulanka xubnaha mucaaradka xisbiyada kuwaas oo qaarkoodna uu qalqal dhanka amniga hadda ay wajahayaan waxaa mudnaanta aan siinaynaa inaan villa Soomaaliya dhex joognay hoteeladii la dejiyay waxaa noola diiday la kulanka xubnaha kale ee muhiim ku ah ee musharaxiinta ee doorashada ayuu yiri mudanahan wuxuu intaas u raaciyay in ay baarlamaanka lagu soo daray saraakiil kale oo ka tirsan hay'adda NISA kuwaas oo loo soo xulay in baarlamaanka 11aad ee dalka ay dhaqdhaqaaqooda la socdaan oo ay kontroolaan xildhibaanada villa Soomaaliya ay soo saartay oo la ogaado shirarka iyo kulamada ay wadaan ugu dambeyn baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxa ku jira saraakiil kamid ah hay'adda NISA kuwaas oo ujeedka loogu soo daray ay tahay kontroolka dhaqdhaqaaqa kulamada shirarka baarlamaanka in la ogaado oo durba kooxda farmaajo
ay rabaan dhaqdhaqaaq walba oo baarlamaanka wado in la kala dhantaalo laga tago. Bila Soomaaliya ayaa la sheegay in tiradii ugu badnaa oo saraakiil oo hay'adda NISA ay kusoo dhex dartay baarlamaanka Soomaaliya waana falsafad cusub oo la yimid Fahdi Farmaajo sidan xogta ku helnay. Da'yarta siyaasadda ku cusub ee dhalinyarada ayaa hadda walwal xoog leh ka muujinaya habdhaqanka kooxdan iyo in cabsi xoog leh ay soo wajahday. dhinaca kale Hirshabelle waxay shaaciyeen jadwalka kuraasta harsan ee 4 kursi ee ugu dambeysay magaalada Beledweyne iyadoo u muuqato kursiga xildhibaanada Aamina in guud ahaanba dib loo dhigay. Guddiga doorashada Hirshabelle ee dadban ee doorashooyinka Hirshabelle ayaa soo gudbiyay jadwalka iyo habraaca doorashada 4 kursi ee deegaan doorashada ee magaalada Beledweyne. Guddiga doorashada Hirshabelle ayaa sheegay in doorashada kuraasta kala ah Hoob 58, Hoob 19, Hoob 59, Hoob 39 Beledweyne ay ka dhici doonto doorashada 27 Maarso ee maalinta Axad ee toddobaadka soo socda oo la qaban doono sida qoraalka guddiga lagu sheegay. Aragada dooranaysa kuraastan ayaa ku soo bixi doonta 6 kursi xulista odayaasha dhaqanka wakiilada bulshada rayidka dhamaantood la shaacin doono iyo goobta lagu qaban doono sida loo hubin doono tababarka ergada iyo weliba macluumaadkaas oo dhan. 3 kursi 4 kursi la shaaciyay waxa ku fadhiya haween waxaana la sheegay guddiga doorashada haddii ay haweenku sidooda ay ugu tartami doonaan. kursiga ugu horeeya 58 waxa uu ku tartamay Nuur Iido Beyle oo hadda ku fadhiya baarlamaanka 10aad laakiin kursigan waxaase kula dhagan oo tartan adag u wajahaya Cabdullaahi Sanbalulshe. kursiga kale xildhibaan Farxiya Maxamed Muumin ayaa baarlamaanka ku fadhisay in hadda tartan adag ay wajahaysa. Samiira Xasan Cabdalla ayaa kursigan ku fadhisay waana xaaska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyana tartan adag ay wajahaysa. kursiga kale Hoob 39 waa Maryan Axmed Haruun ayna tartan adag ay wajahaysa waana 4 kursi ugu dambeysay iyadoo kursiga xildhibaanada Aamina oo u muuqdo in guud ahaanba meesha laga saaray oo madaxweyne Guudlaabe oo go'aan ku gaaray in kursigaas uu dib u dhigo. wararkii ugu dambeeyay ee shirka beelaha Digil iyo Mirifle iyo beelaha Direed ee la qorsheynayo in Baydhabo ka dhacaan eego. Guddiga qabanqaabada shirka beelaha Digil iyo Mirifle iyo beesha Direed ayaa loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho kaas oo dhawaan isugu imaan doonaan siyaasiyiin iyo waxgarad dhinacyadaas. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaas oo ka hadlayay madasha ayaa shaaciyay in la rabo in beelahan oo dhan ay yimaadaan si looga arinsado arrimaha culus ee dalka ka jira saami qaybsigooda. Xildhibaanada beelahan ka soo jira ayaa cudud ahaan iyo kuwa aad u badan marka loo eego nambarka baarlamaanka ku leeyin waana kuwa waxjihayn kara marka loo eego 140 mudane marka la isku daro beelaha Digil Mirifle beesha Direed oo baarlamaanka ay ku leeyihiin. sidoo kale qaar kamid odayaasha beelahaas qaarkood ayaa ina Muqdisho lagu arkaya kulamo xoog leh ee wadaan waxaana xogtan helin ay sheegayaan in kulamadan marka hore la qorsheynayo magaalada Baydhabo loo guuriyo hase yeeshee hadda Muqdisho lagu qabanayo. ugu dambeyn odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo xildhibaanada ayaa la sheegay beelaha Digil iyo Mirifle iyo Dirba ka soo jeeda ololaha hadda caasimadu ka socdo. war-saxaafeed soo saareen waxay ku sheegeen in shirka la qaban doono oo ay ka madax banaanta arrimo siyaasadeed laakiin beelahan ay go'aan ku gaari doonaan isbedel ku saabsan dhanka masiirkooda. hagaaga qeybaha dambe warbixinadeena soo gaarnay ee Allah u naxariistay xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho iyadoo meedkeeda shalay la keenay maanta si aas qaran ayaa lagu sameeyay caasimada Soomaaliya. Allah u naxariistay waxa maanta qabuuru ku yaala isbitaalka xooga ee magaalada Muqdisho aas qaran lagu sameeyay meedka xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi in nabadoonkeeda kaasoo habeen ka hor ku geeriyooday qaraxiis midaamina oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. shalay ayaa meedka la soo qaaday oo Muqdisho la keenay waxaana salaada janaasada lagu dugtay airport waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaare Roble madaxweynayaashii hore dalka ra'iisul wasaarihii hore iyo mas'uuliyiin kale. aaska maanta meedka xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi in nabadoonkeeda waxa ka qayb galay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka bulshada nabadoono waxgarad iyo siyaasiyiin kale. qaar kamid ah dadka ka qayb galay aaska warbaahinta la hadlaya sheegay in aad kaga xubin geerida xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi ayagoo sheegay in geerida ay sababtay cadaalad u raadinta kiiska Ikraan. Allah u naxariistay xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay qaybkeeda dadkii u doodayay cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil oo ay sarkaalad kamid ah ciidanka hay'adda NISA balse la leeyahay nolol geeri halka ku dambeysay waxayna qoyskooda ay sheegeen in gacanta hay'adda NISA ay ku maqan tahay gabadhan oo
ay cadaalad u raadinaysay xildhibaanad aamina warbixinteena ugu dambeysana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ina si kula cambaareeyay weeraradii ka dhacay muqdisho iyo waliba sidoo kale beledweyne weerarkii ka dhacay airport ama garoonka diyaaradaha caasimada Soomaaliya muqdisho ee kii beledweyne ka dhacay 23 March 2022 kuwaas oo mas'uuliyadooda ay sheegatay kooxda al-shabaab laguna dilay 10,000 oo qof oo kamid ah dad rayid ah halka 108 qofna ay ku dhaawacmeen war saxaafeed ka soo baxay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in aad kaga xun yihiin isla markaana ay ka tacsiinayaan ehelada ay dadkii ku dhintay qaraxyadaasi ayagoo sheegay in uu rajeynayaan kuwii ku dhaawacmay caafimaad degdeg ah xubnaha golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dambiilayaashii abaabulay maalgeliyay falalka argagixisada lagana hortago falal kale sharcigan la horgeeyay ayaa lagu yiri warka golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku booriyay dhammaanba dowlad goboleedyada si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga iyo kan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee qusaya in si firfircooni ula shaqeeyaan hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo dhammaanba hay'adaha kale ee qusaya dhanka amniga xubnaha golaha ammaanka ayaa ku celceliyay in argagixisada nooc kasta muuqaal kasta ay leedahay ay khatar weyn ku tahay nabadda ammaanka caalamka waxay xaqiijiyeen dhammaanba ficilada argagixisada ay yihiin kuwa dambiya isla markaan aan wax qiila loo heli karin iyadoo aan la eegaynin waxa ku kalifay email kasta iyo goor kasta iyo cid kasta oo arrintan ay maalgelisa wuxuuna goluhu warmurteedku ku sheegay in loo midoobo dagaalka al-shabaab golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ka walacsan in khatarta al-shabaab ee nabadda iyo ammaanka Soomaaliya goluhu waxa uu ku boorinayaa hogaamiyaasha Soomaalida ah inay wada shaqeeyaan arrimaha qaranka muhiimada gaar ah ee siiyaan gunaanadka doorashada Soomaaliya la dagaalanka argagixisada wax ka qabashada dhibaatooyinka arrimaha bini'aadanimada ayaa lagu yiri warka qoraalka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isku soo duub golaha ammaanka ee qaramada midoobay warkiisa ayaa u muuqda mid uu si weyn kaga soo horjeestay ficiladii fooshuxma ee ka dhacay caasimada ee qaraxyada ahaa ee lagu bartilmaameedsaday dadka rayidka iyo kuwa aan waxba galin waa agaag saaxiibayaal galab wanaagsan warbixinadeena galabnimo ayaan halkaan ku soo koobnaa qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan wixii ku soo kordha warka nacaaw ayaa naga xasuusinaa